السلام عليكم سو dhawaada asxaabta qaaliga ah aan halkan ku midownay halkan ku saaxiibnay halkan family ku noqonay xaafadani waa xaafad kamid ah Garowe caasimadda Puntland ee Soomaaliya waa xaafadaha aynu oran karno wixii 2020 ka dambeeyay 2018 ka dambeeyay 2019 adigu xoogeeda ugu badan aad hadda loo dagayo waxa la yiraahdaa waa xaafadaha wasaaradaha ka dambeeya waxaa la yiraahdaa magaceeda xaafadani Mubaarak xaafadani waa xaafad tashatay waa xaafad dhul aad u degan oo qurux badan oo biyo fadhiisanayn oo buuray dhagax badan lahayn oo maaragtay sida u siman oo deegaameynta iyo degistaba ku haboon waa xaafad hawo leh oo dhowr qaybood ku jira meel yara sareysa iyo meel in yar hooseeya oo aan hooseyn oo biyo fadhiisanayn xaafadani waxyaabaha ay dadku ku doortaan badanka markaad eegto oo dhismaha badan ka muuqda aad wareysato oo dhulkeeda aad qaali u hayn oo ma garanaysaa wali indhuhu aad u wada qabanin qofkii fahmaya mooyaane dhulkeeda badanka waxa lagu qiyaasaa 20 6,000 7,000 8,000 10,000 ma gaarto balka waran dhul wax 10,000 ka yar laga siiyay waa geer weyn iyo guri yar oo fiilo qurux badan oo family yar oo ku haboon family nafis u degi karo gaarigii kugu xaroon karo dad ka dhisan karto kaba soo qaadba beer baba hada doonaysan ka samaysto ciid iyo dhameeyd xagga kale u rogto oo ma artay qodo wax mitir ku dhow oo ciid madow ku soo dhisto oo habaysato kaba soo qaad meel ganacsi baad ka furan kartaayo blocks ku sameey jaajuuro ku soo sameey ka soo qaad meel playground 40 xirato baad sameyn kartaa shaqo abuur wanaagsan oo dhowr dhalinyarana ka shaqeyso oo la yiraahdo waxan playground-ka ama park yaro maar dadku fadhiistaan inta mustaqbalka aad guriyo weyn ka dhisan doonto waa meel ku shaqeynaysa hadda magaalada dhan markaad qiimeyso dhowr meelood mooyaane galbaha jimcaha ah meel dadku ay yiraahdaan halkaas aan u baxaynaa ama halkaas aan aadaynaa waa ku yarta maqaaxi shaahi iyo maqaaxi coffee shop iyo waxyaabahaas iyo meel walba way ku taalaa meel walba waxaana meheradaas la xariga laga furay ama halkaas hadda la bilaabay laakiin waxyaabaha magaalada u baahan tahay waxyaabaha meelaha santrada lagu kulmi karo oo sida maartay qayb caruurta lagu ciyaarsiin karo fuel stationadii leh car wash kile buncher lihii leh wax walba leh aad bay noogu yar yihiin oo maartay sidii wax walba aad niyadaada ku soo dhacay macal dukaameysi ka helayso caruurta meelaad ku ciyaarsiiso ama ha noqoto underground maartay indoor ha noqoto ama outdoor banaan meel loo soo baxay gudaha la galiyo ha noqoto waxyaabo badan baa magaaladu hadda caasimadu aad bay u sii fidaysaa baahiyo badan baa mar walba fidido dadku u baahanaya muhiimadu ma aha dadku inay mar walba loo baahan yahay meel shaaha laga cabo meel sharaab loo soo doonto meel lagu doodo fadhi ku tir loo baahan meel waxa loo baahan yahay maskaxda lagu furfuro مثلا ama ciyaalku ciyaarsiisaya ama game lagu ciyaariya ama cineemooyin waaweyn oo waxyaabo dadka wax taraama historiga lagu soo bandhigo hal laga fure fikrada cusub oo baahan hadda aagan xaafadda Mubaarak boosko haduuba 10,000 ka yar yahay oo 6,000 ba ka badnayn dhulkuna dhul nadiif oo aan dhibaato badan iyo buuxin badan ka galay uusan ahayn ilaa maanta magaalada gudaheeda oo degan laga yaabaa xaafadihii hore ee Garowe degan oo laga yaabo inaad kuleyl ka cabanayso oo laga yaabo inaad kanaaca ka cabanayso oo laga yaabo inaad wadooyin ciriiri ka cabanayso maxaa ku diiday gurigaagaas oo kugu yaala magaalada dhexdeeda ama aad soo iibiso oo ganacsi u bedeshaba ama aad adigoo leh ganacsi u bedelato oo boos yar oo jaban oo hawo leh aad ama Mubaarak ka degtay ama wadada gaalkacyo xaafadda aad oo halka wadadii shacabka ka aad wadadaasna muuqaalka labaad baan ka soo sameyn doonaa dhinaca gaalkacyo wadada dhinacana magaalada oo socota ku darsada wadada gaalkacyo aad magaalada oo socota dhinaca kalena magaalada oo socotaayo halkan amal project laga wada waliyo wadada amalna waa ka socota xog kalena waa nihaya xaafadda Mubaarak marka xagga laascana la aado laamiga oo halkaasi ku yaalaan xaafadan cusub iyadoo halka laga dhisay guriga Samo waxa ka dambeeyo hadda ay golis wada laamiga gaalkacyo ka soo leexda oo xaggana Mubaarak xagga sare ka soo gali doona ayaa xaafadda halka laga dhisi doona taana ku xisaabtama inta reer Garowe ama inta jecel ee Soomaaliyeed oo doonaysa caasimadan aan la kala lahayn
inay soo degaan. caasimadani yaa tahay Soomaaliya, yaa ka tahay, xaggaa ka timaaday, lahjadaasaa ku hadlaysa, waxaa lagama yaqaan. caasimadu waa waxyaabaha amnigeeda kor u qaadaya, waa waxyaabaha soo dhaweynteeda iyo guryaha bilicda leh oo haddaad maanta telefoon ama kaamira la dhex marto sekada walba guriga ama xariga laga jaray ama haddaa laga taagaya ama saaka aroortii ayaa shaqaalihii dhismihii la keenay. marka dadku aad baan ugu faraxsanahay inay boosaskii banaanayo dhan la wada dhisayo, xaafadaha cusub aada loo dhisayo. sababta boos iska banaan oo lacagtiisa qaali laga dhigay wax dana uu ku jiro ma jiraan, ku jirta ma jirto. ama booskan qofka iibiga dhisanaya ama adeer dhiso, okay, haddaadan dhisan karin kireeba oo ganacsiyo cusub wax laga fakaro, ama adiguba inta darbi ama sir ku wareejiso wax faa'iido dalka u leh ka fakar. waxaa kaliya aan kusoo afmeerayaa xogtan aan muuqaalka soo saaray waxa weeye dowladda hoose waxaanu ka codsanaynaa haddaanu xaafadda mubaarak nahay ama xaafadaha koonayaasha maadaama ay magaaladu fidayso, waxaan u baahanay weliba xaafadan xogta iyo wararka iga soo gaaraya waan war hoos si kore u soo wareystay sariibado iyo dhul laga adeegto iyo suuqyo iyo moolashu waa ku yaryihiin. ama community xaafadan ha la shiriyo ama iyo xaafadaha koonayaasha magaalada sida wadada Amal xataa dukaamo yar yar meel walba ku yaala, hatta xaafadan mubaarak dukaamada ku yaala. maasha Allah, masaajidka qurux badan magaalada ku yaala 30 maalmoodba masaajidkaas aan ku cibaadeysanayni. xaafadan waxa kaliya baahida loo qabaa waliba shicibkooda inay ka tashadaan oo dowladooda hoose iyo dowladoodaba la tashadaan. waxa weeye sariibad bay u baahan tahay, meel laga adeegto. qofku waxa ugu sokeeya xataa bajaaj suu ku helo adagta inchi waa inuu aadaa ama meesha ugu sokeyso anfacayo laamiyada waafafo waa inuu aadaa. marka shicibka xaafadani maadaama populationkeedana aada u badan yahay, dowladda hoose waxaan ka codsanaynaa duqa magaalada waxaan ka codsanaynaa ka codsanaya weliba aan afkooda ku hadlaya sariibad degdega iyo suuq weyn oo laga adeegto. ilaahay amniga inoo siyaadiyo, horumarka inoo siyaadiyo. cid walba dhib wada ama wixii problem la arko dowladda la socodsiiyo, dalka la wada ilaashado. wixii xun la iska qabto, qofkii aflagaada ummadda dhaxmarinaya aan danta ku jirin ha laga qabto. horumarka inoo ballana, aakhiradeena inuu hagaajisano ka fakarna inoo ballana, wanaagga dalka iyo maalgashiga wanaagiisa baa inoo ballana. qurba joogta iyagoo faamiliyadooda dalka ka jooga la soo xiriiraya iyo dadka qolqol joogta oo bangiyada inta lacagta iska dhigteen aanan maartay isle ama waxaasi ku soo degeli waaya ama dhulkaasi ama ku anfici waaya, war ka faa'iideyso. sanad walba 1000 baa ku kordha, sanad walba 2000 baa ku kordha. badso dhulka badso. shirkadihiiba wada aragtaa meel walba intay iibsadaan bay sila ku xiraan bay leeyihiin project baan ka furayna. maxaa kuu diiday adigu inaad dhul dhan sila ku xirato oo beera ka furto oo u fakarto oo horumarka iyo dalka geliso oo shaqo abuur ka fakarto. saas aynoo ballana guuliyo gobonimo, wada jir, midnimo, walaalnimo. Soomaali weyn meelay joogto ilaahay nabadgelyo u siyaadiyo, ilaahay ku isfahmo oo madaxda uu hagaajiyo oo madax wanaagsan oo dalka iyo dadka ka fakaraysa ilaahayna siiyo. wixii dhibaato wada meel walba Soomaali joogto ilaahay naga qabto. horumar iyo wanaag ba ilaahay ka rajayna mar walba aakhiri adduunba. sida ula socda boosaskan hadda marka wadada la saxana marta ama dhinaca galka ay aad koonayaasha dhulka ku yaala magaalada Keera baxsan tan kantaroolada la gaarin oo midig iyo bixi baad aado dhulka dad baa qiimayaasha soo weydiiyay dhulku 3,000 baad ku heli kartaa. bari kuma helaysid, maanta waa ku helaysaa 2,500 baad ku heli kartaa, maanta waad ku helaysaa, bari kuma helaysaa. billahi tawfiq. Assalaamu calaykum.